madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu socdaalkiisii ugu horeeyay ku tago gobolka Mudug tan iyo markii la doortay 8 Janaayo 2019. madaxweyne Dani oo ay wehelinayaan wasiiro xildhibaano iyo waliba saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Puntland ayaa dabayaaqada toddobaadkan ka ambabaxaya magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland sida wararku ay sheegayaan isagoona ku hakan doona deegaanada u dhaxeeya Garowe iyo Gaalkacyo oo uu kula kulmayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. wararka ayaa sheegaya in wafdi horudhac u ah oo isugu jira wasiiro iyo waliba xildhibaano ay madaxweynaha uga hormarayaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kuwaasi oo qabanqaabinaya soo dhaweynta madaxweyne Dani sidoo kalena kulamo la yeelan doona odayaasha dhaqanka gobolka Mudug. madaxweynaha dowladda Puntland ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo la filayaa in uu kulamo la yeesho maamulka isimada waxgaradka ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka gobolka Mudug kuwaasi oo kala hadli doono xoojinta wada shaqaynta dowladda ay la leeyihiin. wararka ayaa tibaaxaya in inta uu madaxweynuhu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo uu xariga ka jarayo goobo muhiim ah oo laga hirgeliyay Gaalkacyo sida garoonka kubadda cagta ee Cawaale oo dib u dhis lagu sameeyay ayna iska kaashadeen dib u dhiskiisa jaaliyadaha Puntland ee ku dhaqan dalka dibaddiisa shacabka gobolka Mudug iyo waliba dowladda. safarka madaxweynaha dowladda Puntland ee gobolka Mudug ayaa ku soo aadaya xilli uu soo hagaagayo amniga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taasi oo ay howlgallo ka wadaan ciidanka ammaanka dowladda Puntland tan iyo markii afduub kubsi iyo waliba dil loogu geystay Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir ku nooleed magaalada Gaalkacyo oo eedeysanayaashii ka dambeeyay kiiskeeda ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ay ku xukuntay dil.